الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. janalkan naga daawaneysaan waa janalkan YouTube-ka kuleen hay ee xulka wararka. waxaad ku soo dhawaataan kuna soo socdaan barnaamij wareedkayaga. qodobada ugu doorka roon aad daawan doontaan waxa ka mid noqonaya dalka xiga ee uu Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dalka ku wajahan yahay kadib Imaaraadka Carabta. waxaan soo gudbin doonaa dalkaasi iyo sababta ka dambeysa in uu markaasi uu tago. madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Karaash oo aqbalay qodobo xasaasi ah kadib wada hadaladii Saciid Cabdilaahi Dani madaxweynaha maamulkaasi Puntland. iyana waa daawan doontaan gudoomiyaha xisbiga UCID ee gobolka Sool oo la dilay. iyana waan idin soo gudbin doonaa fila Soomaaliya oo shaacisay qorshe lagu daawacayo lacagta cusub ee Soomaaliya. waan idin la wadaagayaa hadduu Rabbi weyne raali ka noqdo qodobada iyo qodobadiina ku soo kordho intaan ku guda jirno barnaamij wareedkayaga ee idin kugu soo gudbin doona. ugu horreyn waxaan ka codsanayaa haddii aad hore noola joogin inaad nagu soo biirtid oo janalka subscribe noo saar. haddii aad hore noola joogtana daawade aad baan kuugu mahadcelinayaa. mahadsanid. markana waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad hordhaca aad ku daawateen oo intaasi ka faahfaahsan. aynu ku horeynay sida ila xog ogaal ah ay u xaqiijiyeen xulka wararka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda booqasho ku jooga dalka isu taga Imaaraadka Carabta ayaa safarkiisa xiga ku tagi doona dalka Kenya. wafdiga madaxweynaha ayaa safarka Abu Dhabi kadib waxaa la sheegay in uu ka degi doono Nairobi wuxuuna casuumaad ka helay madaxda dawladda Kenya. socdaalka Xasan Sheekh ayaa ku aadan maalmaha soo socda ee dhamaadka toddobaadkan ama horaanta toddobaadka xiga. madaxweynaha Soomaaliya waxa uu Nairobi kula kulmi doonaa dhigiisa Kenya Uhuru Kenyatta. waxaana la qorsheynayaa in kulamadooda ay meesha ugu sareysa madmadow badan oo muddo ku soo jiray xiriirkan labada dal. Soomaaliya iyo Kenya hadda waxa ay haysataa fursad weyn oo ay ugu gudbi karaan sooyaalka xiisado daba dheeraaday oo saameeyay shucuubta labadan wadan. labadan dal ee dhaca geeska Afrika waxaa si weyn isugu milan danaha shacabkooda. waxay faa'iido weyn ka heli karaan iskaashiga iyo is-aaminaadda dhexmarta sida ay qabaan khibrada ka faalooda arrimaha gobolka. inta badan xiisada dhexmartay Soomaaliya iyo Kenya waxay salka ku haysaa kiiska go'aanka caalamiga ah laga qaatay ee badda dhacda xuduudda labada dal, kaasi oo hadda Kenya aysan u furneen waddo ay ku sii wado murankaasi. Soomaaliya iyo Kenya waxa ay si weyn isugu xumaadeen intii uu xukunka joogay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, balse madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa Muqdisho ugu qayb galay caleemasaarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, taasi oo muujinaysa in Kenya ay diyaar u tahay wanaajinta xiriirka Soomaaliya. weli waxaad daawanaysaan barnaamij wareedkayaga. markan haddii aan eegnana wararka ka imaanaya Puntland. madaxweyne ku-xigeenka waa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo kulan gaar ah ku yeeshay xarunta madaxtooyada caasimadda Garowe. kulankan oo ahaa mid albaabada u xiran yihiin ayaa looga hadlay xalinta khilaafaadka dib ugu dhex qarxa labadan mas'uul, kaasi oo saameyn ku yeeshay hay-adaha dawladda. Saciid Cabdilaahi Dani ayaa sida wararku ay sheegayaan bilowgii kulankan ka sheegay in labadoodu isku doon saaran yihiin isla markaana ay mas'uuliyadeeda wadaagaan wixii ka qaldama dawladda. madaxweynuhu waxa uu codsaday in khilaafkooda ay si hoose u xalistaan, isagoona xusay in uu markasta diyaar u yahay xalka si loogu gudbo ismarin waaga taagan. madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa sida la xaqiijiyay dhankiisa aqbalay codsiga madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani ee ku aadan in khilaafkooda ay iyagu xalistaan, waxaana markaasi loo gudbaanay raadii wada hadal garnaqsi ah. warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in qodobka ugu muhiimsan ee laga hadlay uu ahaa sidii laga yeeli lahaa saddexdii wasiir ee xilka qaadista uu ku sameeyay Axmed Karaash. wada hadallo dheer kadib
waxaa lagu heshiiyey in xilka qaadista 3 wasiir uu noqdo madaxweyne ku-xigeenka loona daayo xilkooda. kadib markii qodobadaasi laga heshiiyay ayaa loo balamay kulan kale oo ku saabsan arinta agaasimayaashii uu xilka qaadis ku sameeyay madaxweyne ku-xigeenka. kulan dambe ayaa sidoo kale la filayaa in ay qayb ka noqdaan arrimo kala duwan oo la fulin doono. Axmed Cilmi Cismaan Crash wuxuu daawanaysan barnaamij wareedkayaga markana kooxo hubeysan iyo waxa ay magaalada Laascaanood ku dileen Maxamed Axmed Faarax Aflahaari oo ah gudoomiyaha xisbiga UCID ee gobolka Sool. wararka ayaa sheegay in kooxdaasi ay Aflahaar dileen xilli uu sii galayay hooygii uu ka degnaa magaaladaasi ayna ka baxsadeen goobta. maamulka gobolka Sool iyo saraakiisha laamaha amniga ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano ku aadan dilka marxuumka. Aflahaar ayaa hore u soo noqday xubin ka tirsan golaha deegaanka ee Laascaanood. gudoomiyaha xisbiga UCID Injineer Faysal Cali Waraabe iyo xubnaha guddiga fulinta ee xisbigaasi ayaa tacsiid tiiraanyo leh u diray ehelada iyo qaraabada uu ku geeriyooday ka geeriyooday aniraade marxuum Maxamed Axmed Faarax. dhowr jeer oo hore ayaa magaalada Laascaanood waxaa lagu dilay dad xilal haya ama xilal ka haya Soomaaliland aniraade, waxaana taasi ay keentay in Soomaaliland magaalada Laascaanood ka soo musaafuriyaan boqolaal qof oo ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed. hase yeeshee weli dilku waa ay dhacayaan. haddii aan soo qabtana qodobka ugu dambeeya ee barnaamij wareedkayaga, agaasimo ku-xigeenka madaxtooyada Soomaaliya Maxamed Amiin Sheekh Cismaan oo hadal ka jeediyay shirka dhaqaalaha qaranka ayaa soo hadal qaaday qorshaha dawladda cusub ee dib u sameynta lacagta shilinka Soomaaliga. agaasimo Maxamed Amiin ayaa sheegay in qorshaha dhaqaale ee dawladda Soomaaliya ay ka mid tahay in dhawaan la soo daabaco lacagta shilinka Soomaaliga ee hadda si idlaanaysa. lacagta shilinka Soomaaliga ayaa ah mid kasi dabargoysa wadanka oo dhan iyadoo gabi ahaanba ka soo joogsatay gobolada dhexe ee Soomaaliya iyo Puntland. sidoo kale agaasimo Maxamed Amiin ayaa sheegay in siyaasadda dawladda ay xoog badan ay saari doonto arrimaha dhaqaalaha iyadoo la sameyn doono guddi maaliyadeed oo si dhow ula shaqeeya arrimaha dhaqaalaha iyo daabacaadda lacagta cusub. shaqo abuurka ayuu sheegay in muhiimad gaar ah ay u leedahay dawladdan, sidoo kale wax soo saarka iyo kobcinta dakhliga ka soo xarooda gudaha dalka ayuu sheegay in ay xooga saari doonaan dawladda cusub. gabi ahaanba waa naginta barnaamij wareedkayaga aad ka daawanayseen janalkan YouTube-ka aynu ku leenahay ee xulka wararka. waxaan idinka codsanayaa haddii aad nagu cusub tahay inaad nagu soo biirtid oo page-ka follow inoo dheh, muuqaalka la gareeyo share garee haddaad ka mid tahay asxaabtii hore inoola joogtay yana aad baan kugu mahadcelinayaa. mahadsanid. waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.